الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد أيها الأحبة في الله، waxaan ku dhex jirnaa bilihii xajka, waqti aad u barakaysan oo khayr badan. Allah tabaaraka wa tacaala acmaasha uu inoo jideeyey waxaa ka mid ah in aan gudanno fariidada xajka. rabbigeenna tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka buu ku caddeeyey inuu dadka korkooda ku leeyahay xaj inay beydkiisa siyaartaan oo xajiyaan. si khaasa wuxuu xaqa ugu leeyahay oo uu saaray cidda jid ahaan awoodi karta oo kari karta. markaasaa rabbi wuxuu ka dambaysiyey ruuxii diidana kufriyana allah tabaaraka wa tacaala isaga iska daayay caalamkoo dhan buuba ka kaaftoomaa. ghaniyun can alcaalamiin. waman kafar waxaa soo gelaya ruux xajkaba diiday faradnimadiisoo yidhi maba jiraba. kaa inuu gaaloobayo waa la isla ogolyahay oo murtad yahay, diinta uusan ku jirin. waxaa waciidkaas soo gelaya ruuxa kari kara inuu xajiyo, awooddiisii leh, xoolihii leh, caafimaadkii leh, jidkii mari kara, ee haddana fududaystay ee aan xajiyin. arrintaasina waa arrin culayskeeda la waay. dad badan oo dadka ilaahay wax siiyey ka mid ah sida ay dib ugu sii riixayaan oo uu leeyahay sanadka dambaan ka dhigan doonaa, sanadka dambe ayaa waxaa ka soko maraysa geeridii baa ka soko maraysa. xooluu lahaa, caafimaad buu qabay, jaanis buu haystay, laakiin adduunyuu eryahay. dukaankii buu eryahay, ganacsi buu soo dejinayay, hawl buu kala rogahayay. ma bixi kartid, sanadka dambena ma bixi kartid, ka ku xigana ma bixi kartid. haddaad diidday inaad ziyaarato beydka rabbi tabaaraka wa tacaala, waxaad ku talagelaysaa xalkaagu inuusan sahlanayn. cumar ibn khataab radia allahu tacaala canhu wa ardaahu waxaa ka sugan inuu dhihi jiray ruuxii kari kara inuu xajiyo oo aan xajiyin oo sidaa ku dhinta, inuu isagoo yahuudiya dhinto iyo isagoo nasraaniya inuu dhinto waa isku mid, way siman tahay. bimacnaa wuxuu ka wadaa wuxuu ku dhimanayaa diinta islaamka diin ahaynan buu ku dhiman waaya. aar kalena wuxuu leeyahay waxaan damcay in aan gobollada dawladda ee muslimiintu degan yihiin aan rag u kala diro oo aan amro in ay fiiriyaan ruux kasta oo kari kara inuu xajiyo oo aan soo xajiyin, kadibna ay jizyada ka qaadaan. jizyadii gaalada laga qaadi jiray inay ka qaadaan. maxaa yeelay wuxuu yidhi kuwaasi muslimiin ma aha, muslimiin ma aha. kuwaa jizye ka soo qaada inaan dhahanta maxay buuri. hawshu inay adag tahay baad garan marka. waa tiir culayskiisa leh, waxaana ceeb kuugu filan rabbigaa tabaaraka wa tacaala inuu jidhka caafimaad ku siiyey, xoole iyo risiqna ku siiyey, ku waasiciyey, kaana kari la'yahay isoo booqo, isoo ziyaaro. xadiisulqudsiga rabbigeen tabaaraka wa tacaala uu nebigu ka warinayo wuxuu rabbi leeyahay addoon aan jidhkiisa caafimaad u siiyey, risiqiisana aan u waasiciyey, 5 sano ay korkiisa marayso isagoon ii imaanin oon beydkayga soo booqanin. addoonkaasi waa addoon la qadiyey oo la xirmaaniyey oo khayr laga qadiyey. rabbigeen baa sidaa leh tabaaraka wa tacaala. waxaa loo baahan yahay marka khayrka iyo fariidadaas ciddii aan gudanin inay ku dadaasho, weliba in la degdego. oo nabigeennu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi ruuxii xaj raba ha degdego, maxaa yeelay midkiin ma garanayo waxa dib ka imaan doona, waxa kula soo darsi doona ma garanaysa. intaad isubtood jaaniska haysatood kari karto, nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam degdega. ciddii xajiday ayada lafteeda inay xajka ku noqnoqoto oy daa'imto. nebigu sal alla alay wasalam waa amray, khayr badan baana ku jira.
النبي قال صلى الله عليه وسلم دائما حجك إيا عمرضة كن نقضة محايا لفقرك إيا الذنوبتا أي تكسيان حجك إيا عمرضة سيدا بوفيمدو أي تكسيسو وصخد صارا بيرتا كوركيدا تاوحا لغا فهما يا مركا إن لغو نقضة انتي كران كاغا أو سياسة فريضة أيضا ومن تطوع سيدا ربي تبارك وتعالى أيضا كالكوير يعني التطوع وخير سيادة أو الله تمادو فريضة دي كسيادة عبادة أيضا وحا ربي تبارك وتعالى كبر لنقاضي أبا القد آدوين ولا كوا بكر أعماش إله اللي قلنا وهذا كوا وقفض بدن مكمدي وحا نبي قال لو يدي صلى الله عليه وسلم عمل كيا وقفض بدن وحيول إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم محاكو حقال لي جيتك إلهي اللي قلت جهاد محا الصدح يا لي حج مبرور أبو نمر صلى الله عليه وسلم حج لقو باري نمسمي ولقى إلهي وحي خلطه وحاكر النبي قال صلى الله عليه وسلم إنه يريه حج كمبرور كأه أبا الجود شنك كسكية ملأ أبا الجود كيسو وهشنو وحقولك ما أبا الجود إنه قنكر وأنشن وحكى لأبا الجود ومن قنكر حج المبرور وحنبي قال شيء صلوات ربي وسلام عليه إن روح السوحة شيء لو دم بدافيو ذنوبتي سكول للدافيو سيد حديث عبد عمرو بن عاص النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد وحوليه مركي إلهي قلبي يقل إسلام ماذا أي النبي يؤيد صلى الله عليه وسلم مركز صلى الله بالرسول الله وكعنت إيفدي أن بلنك وقولك على إسلام ماذا النبي صلى الله عليه وسلم كعنت يوسف في دي يقول مركو كعنت يوسف في دي بان كعنت يدي كلابتي مركز النبي صلى الله عليه وسلم عمر ومحال هذا حاكو داعي كعنت إنا في ديال عطستي وكوسو في دي وادي الله بتي سوى حبشنا مركز الرسول الله وحر وإنا شرط دكتو أنت أنا الإسلامي شرط بقى إيجاه الرياء وحولي محاس شرط يسنى يسام حولي شرط قال وطم حولي وحول الرسول الله وحن شرط دقنا يا إن لا إيه ضعف يوحي الدم بيه هروطن تاسا وتا مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمرو ميادا أوجين إسلام كوحي الدم بيه كهري إنه الدميو بابيو توبتنا وحي دنبيه كهرية إنه بابئسو حجكنا وحي دنبيه كهرية إنه بابئسو ما أجد بالنبي صلى الله عليه وسلم مركا حجك وحي دنبيه هرور نبو بابئية لكن وحاميشا كتشرة ثوابك إيا أجرك إيا أبالقودك وين مركا تشليع عيسو أو تفيرين عيسو وحا كسو كيانا فيري بل دربي أنا فيري دربي وحا كسو كيانا فيري ما معنى هذا وحوي الروح كستو ماشى تجي أبا الجود وهلا يا ميا مايا قيود باكحرا شروط باكحرا سيداس لورد لقى روحي أصمية بأبا الجود كله أما ضد بدنه تجي وحلا آن بيصونقن وحنبي يقول صلوات ربي والسلام على روحي حجية وحجك دحديث كإلى لي فسقك مخالفاتك رفضك أفحمدا رقن حمدا دمرك يوحي كصابسن كإلالية دم وحكسر نقول يا حج كيسة السجو أو مالين كي هو يدي لشيء أو كلا سجي الدم بإسدايين لكن محاك حرا فلم يرفث ولم يفسق سيدة آيات القرآن كم وحدة فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حجك وإنه مبرور يحي مركا أبا الجود كأتك هليس طيب سؤال شو وحيته سيد حجك هذا مبرور وقدر يكرتها جواب تيدو وامد لبا ما حجك وحو مبرور كن قنكرا إن أقول أولى هذا حجك النبي صلى الله عليه وسلم كدبنا أتسيدا أقودته فروه مركا وأقونت فروه وبرشدة فروه والرادينتا هذا سترى هذا وندتك إسكرع إن بدنا وندتك كم إذا سيدا يسمينيان حوارات بحن ووقت بعد بحسي وجهد بعد بحسي والدلال بعد بحسي لكن واحد يعكرت إن هذا حلقان صور نقط ليش؟ لأن الرب تبارك وتعالى وحده إنما يتقبل الله من المتقين تدخاص إيه عمل خاص والله أقبلها
xujaydu waa inay arrinta ayada ku baraarugaan sidaas daraadeed baa nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa qablahu horti nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil markay kacbada dhisayeen oo ay kacbada taagayeen ducadoodii waxa kamid ahayd Allah ay weydiisanayeen Allah waxaana bartaa acmaashan sidaan u samayn lahayn Allah na bar nabiyullaahi ibraahim wuxuu u baahan yahay inuu barto manaasigta xajka adiguna ma rabtid inaad barato bal waxa laga yaabaa inaad istustaba inaadan u baahnayn inaad barato طيب nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xajkii uu ummadda ku sagootiyay ummadana ahkaamta xajka uu ku baray laga soo bilaabo madiina markuu ka soo baxay ila acmaasha xajka intuu ka dhamaysanay inta badan nabigu hashiisa korkiisu saarnaa wuxuu hasha korkeeda acmaasha ugu sameynayay inay ummaddu fiirsato laga qaato qaabka xajka loo gudanayo laana aad baa loo badnaa sanadka meel walba la isaga yimid hadduu nabigu lugihiisa ku socon lahaa wax badan baa dad badan ka qarsoomi lahaa laakiin nabigu wuxuu door biday hasha korkeeda si dadku u wada arkaan maalintii tobnaad khudbadu jeediyayna waxa kamid ahaa wardadow acmaasha xajka iyo manaasigta iga qaata ma ogi sanadkan kadib inaan soo xajin doono ficlan saasay noqotay dhowr bari kadib hadalka markuu lahaa nabiga tiisi baa timi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi iga qaata iga barta sababtu maxay tahay man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ruuxi amal sameeya dariiqi nabigana aan ku samaynin iyo sidii loo amray waa lagu soo tuuraya waana lagu soo celinaya waana khasaaray xujayda waxaan ku baraarujinayaa rag iyo dumarba intaydan acmaasha gelin barta oo marka doonaysa sanadkan inaad xajido inta aan waqtigu imaanin isku taxalluji inaad barato oo raadiso oo weydiiso oo dalabto oo aad dadaal ku bixiso adigoo aqoontii leh oo garanaya oo fahmaya tag soo xaji marka ilaahay xajkaaga ha aqbalo laakiin waa iska qasbanaya waa iska madax adeygaya dadkaan iska raacaya wax badan baa ka hoos baxay jahligu waa mid ka gaarsiiyay dad badan oo xujayda kamida oo meesha ajir u raadsaday inay islaamnimadooda buriyaan ayagoo kacbada dawaafay jahligu waa cadow inay islaamnimadii oo dhanba buriyaan ayagoo kacbada dawaafay ilaahay cidaan ahayn buu baryayaa sheekh hebelow buu leeyahay dadkii dhintay buu baryayaa kacbadu dawaafaya carafuu taagan yahay mina iyo musdalifu joogaa ilaahay cidaan ahaynna waa baryayaa maxaa gaarsiiyey jahli aqoon darro iyo wadaad aan isaga dhaamin oo kharibay wadaad aan isaga dhaamin oo aqoon isaga dhigay inuu aqoon leeyahay oo tawxiidkii intuu ka kaxeeyay iyo xaqii rabbi u kaxeeyay meel aan munaasab ahayn iyo makhluuqaad wax laga raadsado waxaad ogaanaysaan amalkan iyo meesha lagu sameynayaba waxa asaas iyo gundhig u ah tawxiid rabbina tabaaraka wa ta'ala markuu amray ibraahim inuu bayt ka dhiso amarkii ugu horeysay la siiyay wuxuu ahaa alla tushrik bi shay'a cidna ha ila wadaajinin cibaadadaydi xaqayga khaaska cidna ha ila wadaajinin asaaska tawxiidka lagu istaaji aayaadka xajka ahkaamtiisa quraanka ka hadlaya markay hadlayaan in badan waxa la soo dhaxgelinayaa tawxiidka iyo shirkiga ummadda looga digo inta waxa kaaga filan xajka iyo umrada astaantooda iyo shaciirada lagu yaqaan waxa weeye wa tawxiid فأهل بالتوحيد حديث في صحيح مسلم من حديث جابر فأهل بالتوحيد نبي وحو كته للتوحيد مركز وحو لبيك اللهم لبيك لك لي لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إذن نوع كل ما وداك وشعير ذا يا علامة عامك حجيد قاضيان أستانت هو حجك يا عمر والله وعبادتي سلوك ليلو شركك يا وحي لم يدول فوقي علامة